Macallimiinta aan u dhalanin gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya ee dhowaan dalbanayay in laga soo bedelo ama transfer wax loo yaqaano laga siiyo iskoolada North Eastern ayaa haatan wajahayo arrin ay ku tilmaameen in walaac badan ay ku abuurtay taasoo ah in guddiga adeega macallimiinta ee TSC ay shaqo joojin ku sameeyaan. Tani waxa ay imaanaysaa kadib amar ka soo baxay guddiga adeega macallimiinta ee TSC amarkaasi oo lagu dhisay in macallimiintan ay goobahoodii shaqo xaadir waayeen bishii Sebtembar. Macallimiinta ay xaaladdan saameynayso ayaa iyagu waxa ay ku eedeynayaan guddiga adeega macallimiinta ee TSC inay isticmaalayso awood xadkooda ka baxsan mise sharci aysan u lahayn, isla markaasina isbuuca soo aadan ay xarunta dhexe ee TSC-da dibadbax ku samayn doonaan. Qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay cabashooyin kala duwan ayay sheeganayaan, waxaana ay sheegeen in marka hore laga codsaday in ay soo qoraan ama ay soo gudbiyaan liiska macallimiinta ay doonayo in laga soo bedelo gobolka Waqooyi Bari, balse la yaab iyo fajac ay ku noqotay in liiskii iyaga ahaa shaqada laga joojiyo oo warqado markaasi loo soo diro. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada qabsaday qaar ka mid ah macallimiintan oo dibadbaxyo ku dhigayay xarunta dhexe ee TSC ee magaalada Nairobi, iyaga oo dalbanayay in gobolkaasi Waqooyi Bari transfer laga siiyo ama laga soo bedelo sababo la xiriiro in amnigooda khatar ay ku yihiin dagaalyahanada ururka Al-Shabaab iyo in dadka deegaanka ee halkaasi degan aysan wax caawimaada ama gacan ka helin. Arrintan iyada ah waxaa si adag uga falceliyey madaxda iyo aqoon-yahanada gobolka Waqooyi Bari, kuwaas iyaga ah oo sheegay in gobolka marnaba uusan noqon karin meel dadka lagu shaqaalaysiiyo kadib markay danahooda ku gaaraanna ay isaga soo tagaan, iyaga oo weliba ammaanka gobolka aad u dhaleeceynaya. Si kasta oo ay noqotaba, wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Ezekiel Machogu oo dhowaan booqday gobolka Waqooyi Bari si gaara ismaamulka Mandera, isaguna arrintan waa uu ka hadlay. Arrintan iyada ah waxa uu ku tilmaamay mid macno la'aan ah, laguna baahdilayo gobolka Waqooyi Bari, marnabana taas uusan taageeri doonin, dowladdane aysan taageeri doonin. Waxa uu sheegay in dhammaan ismaamulada ama gobollada kala duwan ee dalka ay siman yihiin, macallimiintan xilliga tababarka ay sameynayaanna loo soo tababaro in meel walba oo dalka laga shaqaalaysiin karo, meel u go'onna aysan jirin. Haddaba sidee ayaad u aragtaa tillaabada guddiga adeega macallimiinta ee TSC?